ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo ka soo baxay furumaha dagaalka gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay maanta soo gaareen gudaha magaalada Muqdisho. ciidamadan oo fara badan ayaa waxay wataan in ka badan 30 gaadiidka dagaalka waxaana ciidamadan lagu soo waramayaa inay fariisimo ka sameysteen duleedka X Control Afgooye gaar ahaan halka loo yaqaano xarada ciidamada asluubta. ciidamadan ayaa waxay ka cabanayaan mushaar la'aan waxaana ay soo tarayeen maalmihii la soo dhaafay cabashada ay ka muujinayaan mushaarkii garaamkii oo inta la goostay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ku celcelisay in badan inay bixiyaan mushaarka ciidamadaas yeeshee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo mar uu khudbad u jeedinayay saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu cadeeyay in 3 bilood ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya wax mushaar aysan qaadan sabab jir awgood. hadda waa ciidamadii ugu horeeyay ee soo gala gudaha magaalada Muqdisho waxaana jiray ciidamo fara badan oo gaadiid ka sameeyay gobolka Shabeellaha Dhexe hase yeeshee soo gaaray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dowladda federaalka Soomaaliya wali kama aysan hadal ciidamadani maanta soo galay gudaha magaalada Muqdisho. wixii warar ku soo kordha wararkaasi waxaad kala socon doontaan Maanta TV.